السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا صاحبي المركلة iyo barnaamij labaad oo aan kaga waramino magaalada Seylac. Barnaamijkan waxaan ku eegi doonaa wareysiyo aan la yeelanay rag ka mid ah dadka deegaanka kuwaas oo nooga warbixinaya waxyaabaha magaaladan ay la gaar ka tahay. Soo dhawaada saaxiibayaal markale muuqaalkan hadduu ku soo gaadhay fadlan sii share garee oo la wadaag saaxiibada kanaalkana subscribe sar. متحفك تاريخ ذا مقالة سيلع هلكن ودسمة قديمية أو كسميسن دقح كلية كاسور دسمه سلفليه مدهد اللي جتشوجو بقلال سنكور وجو تاريخية أو تاريخ ذا مقالة سيلع لجورو رنشري سيدي نوع عديين دتك ديجانكو وأنا مد كم إذا ميله هو عجيب سن مقالة قوبتن وحيل ذا هي تاريخ فعوين أو سوتشرينا وحنا يسجدن بي قومي ذك الدون أو صومري مقالة سيلع وكان حاج إسماعيل أو كميدا ددك الديغانكا وحو inaga waramaya madxafkan taariikhdiisa iyo wixii lagu kaydin jiray muddadii uu jiray. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. halkan joognaa waa xarunta taariikhda ee qadiimiga ah ee Seylac. waa meel caana waxay isaga dambeeyay dawlado badan. dawladahaas ka mid yihiin Cusmaaniyiintii Talyaaniga iyo mar xilligu jabay isaguna taariikhka ka tagay taariikhna ka qaatay meesha dawladda Ingiriiska boqortooyadii adal dad badan ma isaga dambeeyay halkan. لكن إن بدنا بديعنيد أو أي بابا سنيد لكن ما تقول اسمه يبودي بلور حبيبه تاريخ ذاتي وتاريخ ذي هراء قديم يجيب تالي لكن وحيلونتي دولدي فرح بدنا يقول الدنبي يدور كستابه وحي ورا أنت بابيسو أي وحي اللي جنسي تتناول حكول على تاريخ ذي يعني بساكل أنت يجيبه قرار كي يجيب وحي دي حسوا حكياني دولدي فرح بدنا إمشي تقدم بيه بكل بقولة قبسنتي waxaa dhacday Talyaanigu inuu 8 shukriye joogaarkan 8 shukriye ay Talyaanigu joogay isagoo jabaya iyo halka soo maray uu qabsaday deetana wixii meeshii yaalay uu baabiyay gebigiiba taariikh ahayd intii u dambeysana ee Ingiriiska laga qorayna markii dawladda Soomaaliya baabaaday wixii baabay ee dawladdii buu la baabay isaguna sida way meeshan xaalkeedu qiyaastii ilaa taariikhda xilli ma ka soo bilaabmaysaa wallahi say ilaa تضرب قرص النكار. أي قياس جرتا؟ أي قياس جرتا. أقل كلمة بتسيني إمك. مركا شقة وقبين شري يوح الجور شري يوح جيل شري والمحل نوجش شيء كرتا. سكوبن. وحوي سكوبن تاريخ اللي يجري أقل كان. أقل شيء كذا معها جيب يوسف استعمال استقبل وأقل جيب يوسف الله رجع كسم إنسان ضل يهاسبه. وملا هواح وده حياة رجعها. تصادر كسم قاعد جارها. جيب يوسف حكومة سوى رجعها. ترى تاريخ سلسلة لقي جري قف كستو ماشي سمرة وحبول لقي جري لكن دولدي وكل الدنبيبة وحكيتين إنه قالوا ولا قالوا ده مسحضر فسأنا كانت إني تعرف على الوضع ساعة تعرف يقال الوضع شيء عباسيين تبي يقولوا جي تذكي عباسيين تها أصدابق ضد العقينا وميت كوجا كان بيقول حبلوا جاي لأن أصدابق قالوا صرنا كورا كان كل انتبه جي كان تاريخه بدن بلا ده ماشي guriyaha Seylac ku yaala muxuu kaga duwan yahay bal wuxuu kaga duwan yahay gebigiisu dul iyo hoos buu dhagax wuxuu u dhisan yahay seero dhig buu u dhisan yahay isagoo dhig u dhisan ayaan wax ku jira oo dhagax saafiye mooyaane wax kale ku jira ma jiro adiga waad arki kartaa imika dul iyo hoos buu dhagax qoran fartamadan ma sameyn karno inagu casriga ma tahaysana iyo albaxnimadan ma sameyn karno marka dad inaga karti badan ee dadkaasi ahaayeen hore كسومالان هان محاضر من سجوري إنه وقدر جاني دولة السومالان يوم بدأ السومالان بس قيمين تلك هو تاريخ ذي وحكي فعلا العيد به هذه اللي هرده التاريخ هنا أو تاريخ ذي ورؤية من البطوطة كلا بوكتي وقرأت تاريخ السيلع وكتف أكيد السومالية متعلبة اللي قصيه لي على جاي أبا بطنك الله يرحمه هذا مراكو اللي قصيه لي كرو تاريخه مركا عالم كيكو بهذي وتقولي ولا جهرية ولا جهرية وضنا بدن ولا جهرية marka waxa loo baahan yahay in taariikhda laga daba tago oo la ururiyo ugu dambeyn shacabka Soomaaliland iyo xukuumadda maxaad fariin noocyada dirsan waxaan ugu baaqanaa in taariikhaha iyo dhulka qadiimiga ah taariikh qadiimiga la ilaashado si iyagu isu jiraan bal wixii kala tahay laabeen in iyagu ay si jiraan waa in la ilaaliyaa sidoo kale maanta loo sameeyay waa si fiican weey lacagaha laga helay magaaladan qadiimiga ah Seylac
xilliyada roobka kadib haddaad magaalada dhex marto halka ay ku yaalaan dhismayaasha qadiimiga ah waxaad ku dhex arki lacago roobku soo saaray taasoo caddaynaysa inay meeshan hore u joogeen qowmiyado hore oo kala duwan magaaladana tahay magaalo taariikhiya oo soo jireena waa kan Idris Fall oo ka mid ah dadka deegaanka ee lacagahan ururiyay una haya taariikhan isaga inooga waramaya lacagtan iyo sidoo ku helay iyo qowmiyadaha lacagtan السلام عليكم والعقي هوري سيلع قديمي يا قبل هور كون سدي بقول حصتكي كون سقال بقول صدبدي كون صدح بقول صدح يلا تنكي والعقو انتي طليانيغا حي هيديني تشايناها حي هيديني مصر يا شرمالكا ingiriiska ya walcagaa markuu roobku do-o unbaa laga helayaa inta kale lama helo waa kaas ilaa talyaanigii waa kaa odaygii weynaaye talyaaniga ya dee waa kaa lacagii taariikhda hore waa kaa hay si fiican su-aasha labada kudina waxay noqonaysaa lacagahan qaabkii kugu soo galeen adiga markii hore qaabkeebay kugu soo gaadheen magaalada horta waa qadiimi waa magaalada ugu faca weyn ee saylac la yidhaahdo yaa intii ka ganacsaysan jirtay lacagahoogii weeyaan ee ku dhacay kaaga daranka roobku markuu do-o unbaa la helaa in kale lama helo waad waalanu roobku wax kastaba uu soo saaraa sidaas darteed roobku markuu do-aan ilaa soo wada meeraystaa xabad dee waa kaa si fiican yaa taariikhdu ilaa xilli may kasoo bilaabaysaa lacagahan la isticmaali jiray ee laga isticmaali jiray sila ilaa xilli may kasoo bilaabaysaa lacagaha waxaa ugu horeeya waxay ahaydeen hindiya ugu horeysa 1836 kun waxay ahaydeen 907 yaa kun waxay ahaydeen 823 yaa ingiriis baa jira faransiis baa ku jira waxaa ku jira talyaani yaa geeska africa ku jira wadamadii soo maray waa kuwa geeska africa ku jira ma garanaysa yaa dee waka ilaa masar baa ku jirta 1200 maxay 36 waa masara marka lacagahan wadanka lacagahan yaala magaalada waxay ka dhigantahay in dhammaan qowmiyadaha amba dalalkan amba ummadahan ay soo mareen ay ka dhigantahay lacagtan ka turjumaysaa miyaa haa dee wixii ganacsi kaga jiray ayay ku turjumaysaa ee magaalada xayadeena halkan iyo herar baa isku xidhnay yaa marka magaaladu waa magaalo ganacsi waa magaalo ganacsi bay ahaan jirtay magaalada guddaada weyn la sii dhacmaynahayn yaa dee waa kaa geeska africa waa lacagii laga isticmaali jiray intaasoo dhaniba way soo wada mareen yaa kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah wareysiyadii aan la yeelanay dadka deegaanka iyo xogta ay naga siiyeen meelahaas kala duwan waan uga mahadnaqaynaa wareysigaas xaaji Ismaaciil iyo Idris Fall oo ahaa raggii aan wareysiyadooda xagga hore kusoo aragnay muuqaalkan intaas ayaan kusoo koobinaa maadaama aanan jeclayn inuu muuqaalku sii dheeraado balse waxaad la socon doontaan muuqaaladan taxanaha ah qaybteeda saddexaad oo aan kaga waramayno magaaladan qadiimiga ee Saylac